Bismillahirrahmanirrahim. Waa kooraskii Microsoft Word 2010. Kooraskii hore casharkii hore waxaan kusoo baranay sida loogu shubo Microsoft Word programka, qaabka loogu shubo softwarekaas. Casharkana waxaan ku baran doonaa qaabka loo soo kiciyo Microsoft Word markii aad doonaysid inaad isticmaashid. Waxaa jirta afar siyaabood oo loo soo kiciyo Microsoft Word. Bal mid aan u dul istaagno. Kadib markii aad fahantid afarta qaabood, waxaan isticmaali doonaa qaabka noogu fudud si aan u baraatikeeno. Balse sida guud afar qaab ayaa loo soo kici karaa, four ways ayaa jirto oo loo soo kiciyo. Bal aan aragno. Number 1, marka koowaad marka aad rabtid inaad Microsoft Word soo kicisid, qaabka koowaad aad ku soo kici kartid waxaa waaye inaad tagtid startigaas inaad tagtid waa ku dhufanee waxaa sameynaa hoos u soconee mafahant kan soo jiid waxaa raadinaya Microsoft Office folderka mujada Microsoft Office ku dhufanee marka ku dhufato ay furmaa hoos u soco programka hoos oo jira saan u soco hoos u soco ilaa mid ka rabtid aad ka tagtid. Hadda maxaa ii muuqanaya Microsoft Word 2010 kan waa midka aan raadinayo waana Microsoft Word. sida u jeedid Microsoft badanaa jiro waxaan oo dhan waxaa waaye Microsoft Office ay hoos imaanayaan oo u jeedaa, balse anaga kan ka raadinayno maxaa waaye waa Microsoft Word 2010. halkaas ayaa ku dhufanaysaa waa kaas. hadda maxaa ku jirnaa Microsoft Word document 1. hadda waxaan soo kicinay Microsoft Word. waa habka xoogaa ugu dheer ugu adag ayaan isleeyahay, waana qaabka koowaad oo aad ku soo kici kartid Microsoft Word. bal aan iska xirno oo aragno qaabka labaad. Number 2, qaabka labaad oo aad soo kici kartid waxaa waaye inaad meeshaan tagtid start menu, startigaana tagay halkaana waxaa ku qoraysaa Word. waa qoray mujada maxaa ii soo booday Microsoft Wordkii kor ayuu kasoo muuqday maxaa yeelay magaciisa qayb ka mid ayaa qoray Microsoft Word ayaa soo gaabsaday hoosaa ku qoray kadibna wuu soo muuqanaya asaa uu qoray mujada waa ku dhufanaa saas maxaa ku galay Microsoft Word document ayaa ku jira iga soo xir. qaabka labaad waa ila aragtaa umalaya. Okay, qaabka saddexaad oo aad ku soo kicin kartid waxaa waaye in aad dooratid window R. window wuxuu ku yaalaa waa calaamadan mujada meeshaan. hadda maxay sawirka inta iga muuqdo mujada inta hadda sawir ay iga muuqdo qaybtan hadda highlight ka saar mujada waxaa waaye calaamada windowgan keyboardkaaga ka fiiri. keyboardkaaga waxaa ku yaala waxaa jira badhan lagu magacaabo window. badhankaas ayaa riixaysaa R ayaa la taabanaysaa window R. ani hadda waa taabtay boxkan ran la dhahayo ayaa ku soo bixi doona. window aad haysid ayaa R taabanay mafahant keyboardkaaga marka aad taabatid boxkan ran ayaa ku furmi doona insha Allah. kadib maxaa ku qoraa boxkan meeshaan aad tagaysaa waxaa ku qoraysaa Word mujada Word waa Microsoft Word ayuu soo kicin doonaa. Okay ayaa dhahaa maxay soo baxay Microsoft Word ayaa soo kiciyay. waa qaabka saddexaad maxaa waaye inaad window R inaad dhahdid kadibna Word inaad ku qortid sida aad u jeedid window R aan dhaho Word qaabkaasaa loo qoraa mujada qaabkan Word au qoray mafahant kadib okay aadhe ama enter wuu isoo kicinaa. qaabka saddexaad waa ila fahantaa umaleynaa. Okay, haddaba maxaa waaye qaabka afaraad waa qaabka ugu fudud oo aad ku soo kici kartid kuna isticmaali kartid Microsoft Word. bal aan aragno. shaashada meel banaan ka tag markii aad tagtid right click ku dheh. markii aad dhaadid new ayaa ka dooranaysaa. new markii aad dul istaagtidba waxaa ii furmi doona boxkana waxaan ka dhex raadin doonaa Microsoft Word document. ku dhufo maxay soo baxay meeshaan waxaa iga soo muuqday document cusub new Microsoft Word document ama magaciisa defaultiga ayaa enter ku dhahe ama magaca u baxsanee. bal magaca u bixino book ayaa ku qoray enter kadibna double click ayaa ku dhihi doonaa. hadda maxaa ku jira Microsoft Word magaca u baxsada book
Microsoft Word. waa kaas afartaas qaabood ayaa loo isticmaali karaa loona soo kici karaa Microsoft Word waana waxaan isticmaali kartaa qaabka kuugu fudud insha Allah tacaala waa mahadsantihiin inta casharka xigta ku kulmi doono waxaa idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.